Three. Hi, markale aniga leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka badankiis ama qaasatan dhalinyarta sababtoo wadankan aan joogno ama meeshaan aan ku noolahay badanaa dhalinyarta ma haystaan hamigi iyo wixii ay lahaayeen yani ma lagu caawiyo waxaan aqaanaa dhalinyar badan oo rabo inay mustaqbalkooda hagaagsadaan waxaa kaloo aqaanaa weliba dhalinyaro aad iyo aad u badan oo hamigoodii ah inay sportska qaasta dhinaca footballka ay horumarka gaaraan balse aanay haysanin dhinaca sababta like familka oo kale ama asxaabta hata ama dadka qaarkood dhaga hadal ku hadlaayaan ama caawinaynin iyagoo la caawinayn haddana niyajab badanaa uu kasoo gaaro dhinaca familkooda waxaa kaloo aqaanaa dad badan oo riyadooda ay tahay inay football horumarka gaaraan balse u diideyso chanceyada ay haystaan iyo dhinaca lifeka cause maanta adoo shaqo iyo family leh sportskan ma aadi kartid cause familka biili kaa sugayaan ilmaha kuga xiriiro soo danta waxay kalifaysaa inaad iska dhaaftid marmarka qaarna lifeka waxay ku geysaa meel aadan ka filinaynin marka qalad aasha la gashay iyo ka hor istaajin mustaqbalkaaga fiicnaan ma ogtahay dad badan oo shalay xumaayaan inay maanta fiican yihiin ma ogtahay dad badan oo shalay niyaddu ay ka jabeen maanta inay dib niyad u dhisteen ay waxay rabeen heleen cause maanta ma ogaan kartid wax maanta dhacaya beri inay wax isbedeli doonaan laga yaabay maanta inaa nii jabsan tahay dhigi karto waxaan ma samayn karin waxaan waa iska dhaafaa laakiin beri inuu ilaahay kugu bush kari aa rabtid hamiga aa leed ayna gartid so waxaa kaa codsanaa walaa adiga kula hadlayaa anna waa isla hadlayaa in dadka qaarkiis hadalkooda aadan dhegta qusiinin cause sometimes dadka hadalkooda waxa ugu badan niyadda ku jirta waxaasa ka mid ah maanta hadaa ku imaadaa ku dhaw waxaan ma samayn kartid waxaan waxaa taa ma lahan niyadda waxaa gashanaysaa inaa waxba ahayn laakiin haddaa dhegaha farta gashid aa hamigaagana raacay aana si fiican u dadaashid ilaahayna aad tala saaratid cid wax kuu diidi karta ma lahan ma og tahay inaad tahay qof aad u qaali ah weliba dadka dhan ay ku jecel yihiin ma og tahay in aad tahay future mustaqbalka ma og tahay in dad badan ay jeclaan jireen ama hamigoodu u ahaa inaa adiga camal ay noqdaan laakiin waqtigu saamixi waaye ma og tahay in footballka aadan horumar ku gaarin haddaadan discipline lahayn ma og tahay in disciplineka uu yahay mid ugu koowaad ee sportska ma og tahay inuu footballka yahay isdhexgalka bulshada ma og tahay midda kale in aanan lagu helin riyadaada haddii nafsadaada aaminsaneen ma og tahay in ay laazim tahay in wax walba u shaqaysatid aana u sabartid sababtoo waxaa la kulmaysaa waxyaabo badan oo aadan u dulqaadan karin dadaal weligaa hanii jabin shalay hadduu waqtigii kuu saamixi waaye weli waqti ayaa haysataa maantadaan la joogo chance ayaa haysataa waa dadaali kartaa waxba ha isdhiganin waxba ha dhihin tiimkayga u dhamaado waxba ha dhihin da-aya waxba ha dhihin ma samayn kari waxba ha dhihin cadow ayaa leeyahay wax walba waa samayn kartaa but hal wax ayay ku xiran tahay waa inaad taqaanid sida dadka loola dhaqmo waa inaad leedahay discipline waa inaad wax walba ilaahay ka hormarisaa markaas kadib waxaaga dhan way isku hagaagayaan maanta waxaa laga yaabaa inaad dhahdid sidee waxaan ku waaya laakiin aadan ogeyn waxaa weyse wax ka fiican inuu ilaahay kuu qoray hanii jabin weligaagana ha ku fikirin inaad xumaan ku dadaashid ama aad samaysid sababtoo ah dad badan ayaa kugu tashanaya dad badan ayaa dhahaya rabaan xataa inay ada camal noqdaan naftaada weydii waxaan hadda qabanayo maxaa u bilaabay hamigiisu muxuu ahaa sababtii u kaliftay inaa bilaabana maxay ahayd cause waa laga fiican yahay inaa wax iska bilaawdid adigoo ogeyn meesha u dambeyso waxaas markaa aad samaysid ma og tahay markaa kubadda ciyaaraysa ama footballka aad ciyaaraysid badanaa maskaxdaada wax walbo ay ka baxaan niyadaado dhan 90 minutekaasa ku mashquulsan tahay laakiin markaa ciyaarta dhamaad kadib oo qof walba jan ijeysto xaafadiisa aado haddii ko markaas ay fikir bilaabaysaa isweydiis sababtaas sababta sportska ama qaasatan footballka wax ka fiican ma lahan
maanta dhan waa faraxsan tahay oo saaxiibadaada ku dhex jirtaa bad markaad dadkaas ka dhex baxdid bulshada ka dhex baxdid xaafad tagtid waxyaabihii kale oo hadda ayaa ku fikiraysa ayaa bilaabaysaa soo marka Soomaali waxay dhahday hadal badan hanoo buuxiyo marka waxaa jeclaan lahaa khaasatan adiga ayaa kula hadlaya qofkaas adigan haddii fiirinaysid adiga kula hadlaya one day one time waxaa noqon doontaa qof dadka dhan ay ku faanaan waxaa noqon doontaa qof walba uu jecel yahay inuu la kulmo ama uu sheekaysto ama uu ka sheekeeyo sababtoo ah waa u qalantaa in intaasoo wanaag aa heshid maalin maalmaha kamid waxaa dhici doonto aad ku farxi doonto horumarkaaga aan kaga sheekeyn doonto dadka agtaada joogo meeshaa kasoo bilowday iyo waxyaabihii aa usoo dulqaadatay ayna noqon doonto sheeko dadka dhan ay ka wada helaan ogow in dadka dhan ay ku jecel yihiin ogow khaasatan inuu ku jecel yahay ilaahay ku abuurtay weliba jecelkaas oo ah mid faamilkaaga ka weyn iyo hooyadaada iyo aabbaaga waayo marka maxaa kugu kalifaa in aad inweydid qalbigiis ka dishaa dhaadid waxaan maxay ugu dhacaan ama maxaa ma ogta wax walba kugu dhaco plaankiisi inay tahay waxaa kaa codsana inaad dadaashid horumarkaaga inaad ka fikirtid weli waa yar tahay mustaqbal fiican ayaa ku sugaan waana u qalmataa wax loo fiican dadka badankiisa waxay dhahaan waxaana fiicnaan lahayd inaa heshid meeshaanaa joogi lahayd adi saana kuu fiicanaha laakiin kulligiina waa u qalanaa wax walba u fiican inaa helno dad ma jirto wax fiican inaa heshid weliba adoo dhib iyo caqabata iyo wax aadan arkin dulqaado si fiican u dadaal ilaahay tala saaro horumarkaaga waa gaadhay love you take care